waxaa jira warbixino tilmaamaya in isticmaalka joogtada ee sameecadaha gaar ahaan Bluetooth-ka, iPod-iska iyo sameecadaha dhagaha ay waxyeello u geysan karaan caafimaadka maskaxda. qalabka dhagaha ayaa sii daaya shoocaca sida lagu sheegay daraasad lagu daabacay joornaalka cilmi baadhista deegaanka 2019. warbixinada qaar ayaa sheegaya in shoocaca EMR ee iPod-iska iyo telefoonada dhagaha ee Bluetooth-ku ay kanaalka dhegta u keeni karaan dhaawac soo gaadha unugyada taa oo marka dambe isu bedeli karta buro. bayaan ay soo saareen in ka badan 250 khabiir oo ay u direen ururka caafimaadka adduunka ayay uga digeen halis ay rumaysan yihiin inay ka dhalan karto isticmaalka sameecadaha iPod-iska. khubaradu waxay sheegeen in shoocaca ka dhasha uu sababi karo cudurrada halista ah sida kansarka. balse khabiir ku takhasusay neerfaha oo jooga xarunta burada maskaxda Pacific ee California ayaa u sheegay wargeyska Reader Digest in heerka waxyeelladu aanay caddayn. dhinaca kale, guddiga isgaarsiinta federaalka Mareykanka ayaa ku sheegay website-kooda inaanay jirin caddayn cilmiya oo ku saabsan xidhiidhka ka dhexeeya isticmaalka aaladaha wireless-ka iyo kansarka. inkasta oo xoogga la saarayo cilmi baadhisyo badan oo lagu sameeyo xidhiidhka ka dhexeeya isticmaalka aaladaha Bluetooth-ka iyo kansarka, haddana khubaradu waxay soo jeedinayaan in isticmaalka iPod-iska taxadar laga sameeyo, sida in laga fogaado isticmaalka aaladahan maalintii oo dhan iyo in qofka isticmaalaya haddii uu guriga joogo uu adeegsado sameecadaha caadiga ah, iyo in weliba aaladaha wireless-ka dhagaha laga saaro marka aan la isticmaalin. sidoo kale in qalabkan laga fogeeyo sariirta xilliga hurdada. si aad u hesho barnaamijyo xiiso leh iyo xogo dhammaystiran, fadlan follow garee oo ku xidhnow Shakaal TV.